بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan halkani waa janalka kaaha bulshada maanta waxaan rabnaa markaasi halkan ka soo jeedino oo ku saabsan dhaqan xumada dadkeena Soomaalida inta badan ee caan ku yihiin Soomaalida yar iyo weynba inta badan waxa loo sheekeeyaa inay yihiin dad wanaagsan dhaqan ahaan ay yihiin dad ugu fiican shakhsi ahaan dad ugu fiican haddana marka fiiriso waaqaca ama waxa muuqda ee indhaha haya ayaa waxay yihiin wax bilcagsi ku ah arrintaasi dhaqamadaasi waxaa kamid ah dadka Soomaalida in muddo 31 sanadood ah ee dalalka caalamka ay qaxooti ku yihiin ee daafureegayaan isla markaana dalkooda ay hagaagsanayeen waxyaabaha cajiibka waxaa kamid ah dadka Soomaalida markay dalkooda joogaan ma ahan kuwo markaasi sameeyo waxa ay afka ka sheegayaan dadka Soomaalida way ka barakaceen dadka Soomaaliya waxay tageen wadaman galbeedka iyo wadamo kale oo sharciga aad ugu shaqeeyo waxaana arkaysaa in dadkaasi saf ay u galayaan ama safka tareen laga raaco ama bas laga raaco ama meelaha kale dukaameysiga ay saf u galayaan mana arkaysid nin ku xadgudbaya safkaasi laakiin markay dalkooda joogaan ma ahan kuwa u hogaansama inay safkaasi galaan iyagoo markaas nin jecleysi iyo gacan bidixeys ay rabaan inay safkaasi kaga hormaraan qofkii ka horeeyay sidoo kale waxaa arkaysaa qofka Soomaaliga ilaa haatan ay sameeyaan markay dibadda ka yimaadaan oo magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale dalka Soomaaliya marayaan xabadda sigaarka iyo tuuraan sigaarka bulshada ku dhaxabaan qaarkood gawaarida ku dhaxabaan laakiin markay dalkaas tagaan ma sameeyaan sidaas haddaba maxaa qaldan marka waxa qaldan waa in ay sharciga u hoggaansamaan ama qofka Soomaaliga muhiim tahay inuu ku noolaado sharciga dhaqamada Soomaalida aad ku liito waxaa sidoo kale kamid ah in qof xanuunsanaya loo imaado isla markaas qofkaasi xanuunsanaya uu noqdo qofkii xanuunkiisa laga warsanayay tusaale ahaan qofka xanuunsanaya waxaa inta badan caawinaya kalkaaliso haddii isbitaal joogo haddii gurigiisa joogana waxaa ag jooga qof markaas saaxiib la ah ama familkiisa marka qofka loo imaado qofkii xanuunsanaa oo isaga tiisa haysto ayaa wareysi lala bilaabaya markaas waxaa arkaysaa qofkii la weydiinaya xanuunkiisa iyo xaaladiisa halkii ay ka ahayd ama sida saxda ay tahay in qofka ag jooga la weydiiyo qofka xanuunsanaya waxaa laga yaabaa xitaa inuu hadal ka dhibayo laakiin Soomaalida sidaas ma samayso oo qofkii ay ku xadgudbayaan markaas u gudbayaan ay leeyihiin sida lagu hayaa hebelo markay xogta dhageystaan isla markaasna ay ogaadaan cudurka ninkan haya ama xanuunka uu qofkaasi hayo ayaa haddana waxaa arkaysaa in qalbi ahaan qofkaasi loo sii niyadjabinayo waxaan markaas reer galbeedka ama luqadda qalaad lagu dhaho hope killer in rajada qofka laga baabiyo qofkii xanuunsanaya xoogaa markaasi caafimaad yar helaya ayaa loo sheegayaa cilada ama xanuunka isaga hayso inta qof ee u dhimatay ayaa loo soo tirinaya oo ay ku jiraan qaar kamid ah asxaabtiisa ama qaar kale uu ka saayay ama dad kale loogu sheekeeyay waana mid aan arrimahaasna waa mid aad u liidata marka loo fiirsho dhaqamada saxda ah Soomaalida waxyaabaha aad ugu faanta waxaa kamid ah dhaqanka haddaba dhaqanka Soomaalida wax meel iska weydiiyay tusaale ahaan kale waxaa jira waxa la dhaho preconceived ideas oo ah wax hore oo qof ee dad ay alifeen ee dejisteen ee meel dhigteen waxaas marka waxay noqon karaan wax qaldan iyo wax saxaynta isugu jira waxaa maqashaan inta badan dhaqanka Sooban haddaba ugu dhaqanka Sooban ma ahan aayadna ma ahan wax kale ma ahan waa wax ama arrin ee rag hore oo jiri marka 100 sano ka hor ee dejisteen waxaa ka dhaxli karta waxyaabo ugu foosho xun dhankaas marka ka fiiriso dhaqanka Soomaaliga qeyb fiican way ku jiraan laakiin qeybaha xun waa in la saabtaa maxaa kamid ah qeybaha xun la macaamilka ama habka Soomaalida oo macaamisho ama fikradda ay ka haystaan haweenka dhaqanka Soomaalida wuxuu cayilsiiyaa oo awood siiyaa waxa loo yaqaan misogyny waa maxay waa rag nacab haweenka una nacab in naagta darteed waxaa arkaysaa inta badan qofka Soomaaliga wiilka ah ama ninka wuxuu leeyahay waa naag maxay og tahay macnaha talada xataa la baarti shaqo kama qayb qaato wax ma qaban karto waxaa leedahay xataa kartidooda haweenka Soomaaliyeed dalka markuu burburay qofka soo ka warhaysa kaalinta ay ka qaateen barbaarinta iyo korinta codkooda iyo markaas nolosha ay soo dhicinayeen haweenka waxay sameeyaan wax ugu wanaagsan ee qof bilaadan uu sameeyo taas oo ah inay barbaariyaan carruurta waxaan lagu aaminaa haweenka waxa ugu wanaagsan oo ah in qof nool ah ee tarbiyaan oo lagu aamino
haddana dhaqanka soomaaliya markaa dib u raacdo wuxuu ka mid yahay dhaqamada loo yaqaano patriarchal society ama afka carabi lagu dhaho ijtimaacu dhukuri ama bulshada uu ninka taliyo ama aabbaha uu taliyo, taasoo ka dhigan gari gardarba aabbaha wuxuu go-aan ku qaato in la qaato, xitaa hadday ka fikir fiican tahay hooyada ama gabadha aan la qaadanin, oo markasta lagu qasban yahay in ninka fikirkiisa la qaato. dalka Soomaaliya dhaqankiisa ama dalka Soomaaliya dhaqankooda dhibaatada ugu xoogana sidaa sheegay haweenka ayaa aad markaasi loogu bahdilaa. waxaa kaloo dhaqankaasi dhibaato ku haya caruurta, waana laba bulsho ama laba qayb oo kamid ah bulshada oo aad u nugul. markaas si sax u hadalno kala sareynta bulshada, kaalinta koowaad waxaa ku jira caruurta, kaalinta labaad waxaa ku jirta haweenka, kaalinta saddexaad ay soo galaan ninka ama ragga. laakiin Soomaalida bilcagsi u isticmaashaa oo waxaa arkaysaa in kaalinta koowaad la siiyo mudnaanta ninka, kadibna numberka koowaad, numberka labaad, numberka saddexaad nin la iska leh. caruur iyo naag wax laga marka sheeg waxba laguma soo qaato. hadda waxaa rabnaa waxyaabahaasi anigoo markaasi qodobeyn doono oo mawduuc kasoo qaadan doono inaan kaga hadalno barnaamijyada soo aadan ee janalka ka daawan doontaan. janalkan waxaa kaga hadli doona wax kasta oo markaas siyaasi dhigi karno waa macluumaad bulshada faa'iido u leh. dadka Soomaalida waxyaabaha dhibaatada xoogga leh ku haya waxaa kamid ah waxa loo yaqaan narcissistic oo ah cilad ama habdhaqan ciladeed oo qofka bini'aadamka adduunyada dhan markaasi ay qabaan. laakiin dhaqankeena Soomaaliya markaa fiiriso ama dadkeena Soomaaliya dhaqan ahaan ayaa waxaa u muuqdaa inuu narcissistic u cayilsiiyo uu awood dheeraad siiyo. narcissistiga isna mawduuc gaar ah uga hadli doonaa hadduu ilaahay markaasi waqti nagu simo oo alla na gaarsiiyo. waxyaabaha kale cajiibka waxaa kamid ah dadka Soomaalida ah waxaa jirna aad ugu faani jirna dhanka nadaafadda. Soomaalida nadaafadda aad ugu liitaa, meel kasta markaad dhinac kasta ka taabto bulshada Soomaalida dadka ugu liitaa adduunka noqonaya ama inta aragnay. maanta waxaa rabaa inaan xoogaa ka taabto barnaamij ku saabsan xiriirka xun ee markaasi dhex mara lamaanayaasha gabadha iyo wiilka ama ninka naagtiis qaba. dhaqamada ama xiriirkaasi xun oo inta badan qaarkiisna uu sababo dhaqankeena Soomaalida ayaa waxaa kamid ah marka labada qof isku dhacaan, tusaale ahaan kale ninka la gardaran gabadha la gardaran yahay, markaas waxaa garta la siiyaa ninka. waxaa kaloo arkaysaa in gabadha xitaa lafsigeeda mararka qaarkood ay gardaran tahay oo haddana wiilka leeyahay gabadhaasi waa gabar fiican oo wadaad ah afgaaban, ninka muxuu ku maagay. meesha waxaa jira cilado markaasi psychologian ama cilmi ama kasbanafeed waxa la ama cilmi nafsiga oo dadka aysan inta badan fahansanin. waxaa kamid ah narcissistic oo ninkana qaban kara naagtana qaban karo. waxaa markaas dadka narcissistiga inta badan ay sameeyaan in qoyskooda ay u dhaqmaan qaab weji gaar ah, halka bulshada markay la kulmaayaan ay xigtaan maskaro oo ay weji kale ku qaabilaan. haddaba xiriir qaldan ama xiriir xun inaad ku jirto maxaa ku ogaan kartaa? waxyaabaha lagu ogaado waxaa kamid ah in aad dareemeyso ama waxaa jira waxyaaba dareeno oo qofka bulshada ama qof kastoo bini-aadana Ilaahay subxaana watacaala uu siiyey, taas oo ah dareen gudaha ku jiro. af Soomaaliya kuma naqaano, inta badan af Soomaaliga waxaa la lahaa hodan, laakiin af Soomaaliga hodan kuma ahan marka laga fiirsho arrin badan oo cilmiga ama psychology ku saabsan ama kasbanafeedka ama cilmi nafsiga. hadda intuition waxaa la jiro. intuitionkaas waa dareen gudaha ku jiro oo qofka u sheegay waxyaabo ka duwan waxyaabaha caadiga u muuqda ee hadalka markaas lagu saaro. xiriirka qaldan waxaa ku fahmi kartaa inay waxaa dareemaysaa inay wax kaa qaldan yihiin oo sidii wax aad rabtay aysan u soconin. sidaa darteed marka xiriirka qaldan ama xiriirka xun sidaas ay ku fahmi kartaa. xiriirka qaldan ama xiriirka xun waxyaaba aad ku fahmi karto waxaa kamid ah waxyaabaha aad soo sheegay. waxaa kaloo kamid ah in uu xumaado xiriirka kala dhexeeya lamaanahaada ama ninkaada ahaada ama xaaskaada ahaato. maxaa kamid ah in hadalka isku fahmlaadiin oo war kasta oo wanaagsan aad dhahdo lagu bedelo war xun, oo halkaasina uu warka taagtaagka galo ama qaabdar noqdo oo warka sii socod waayo. waxyaabaha kale oo ku fahmi karta waxaa kamid ah markaa lamaanaha la joogto inaad dareemayso caajis, isla markaasna aadan markaasi jeclaysanaynin isaga inuu kula joogo ama iyada ay kula joogto. mararka qaarkood inta badan markaa dhaqanka Soomaaliya fiiriso ragga
marka lagu sameynayo ama xaaskiisa xumaato ka ragga inta badan fursaday haystaan oo inay meelaha kala soo wareegaan banaanka u baxaan asxaabta la soo ciyaaraan laakiin markuu ninka noqdo nin toxic ah ama nin aada u xun way adagtay gabadha markaasi inay banaanka u baxdo inta badan caruur haysaa ama gurigeeda joogtaa ama isagaa cunto ka sugaaya wax noocaas oo kale marka inta badan waxaa marka meesha la taagan yahay fursad fiican wiilka oo markaasi dhici karto in qodobkaasi xoogaa un si ugu badbaado inkastoo uu dareemayo xanuunkeeda ciladaha kale waxaa kamid ah in dhibaato marka qodobka marka inta badan wuxuu ku dhacaa dhanka haweenka kale oo waxaa arkaysaa gabadhii oo aada xaaskaada ahayd oo biilka aada siisay in lacagtii lagu soo iibiyo waxyaaba aan micno lahayn oo aan muhiim ahayn kadib lagu dhaho nin biilkii oo dhamaaday hebel oo lacagta aan kusoo iibsho waxaan kusoo iibshay oo lagaaga dhigo markaasi wixii muhiimada koowaad ee ku bicisay biilkii waxyaabahaas in waxyaaba aan loo baahnayn lagu baxsho oo lagala dagaalamo dhaqaalaha ninka ragga ah oo noqdo markaasi mid aan waxba lacag meel inay udhiganta loo diidayo waxyaabaha kale waxaa kamid a oo nimanka inta badan ay sameeyaan oo ku saabsan xiriirka xun calaamadiis lagu fahmi karo waxaa kamid noqonaya in gabadha inta badan wiilka uu gabadha ku dhaho hadallo aan qurux badneyn oo ay kamid tahay waa cayisho kale waa foolxumaato kale markaa kusoo guursanaya sidaan uma qurux badneyn in gabadhii markaasi fiiskal ahaan jir ahaanteeda uu markaasi cilad u yeelo taas oo saameyn ku yeelan karto maskaxda gabadha waana markaasi inta badan qodobkaas waxaa u badan ragga oo inta badan gabdhaha kula dhaqmo waxaana ka markaasi qodobadan ku jaangoonaya waxay tahay ama kasoo galaya dhanka arrimaha soomaalida ee dhaqankooda calaamadaha kale ee xiriirka xun ee lamaanayaasha waxaa kamid ah in magacyo xun laisku baxsho ama si un laisku liido tusaale ahaan oo kale wuxuu qofka kale lamaanaha kuleeyahay ma tihid qof qiimo leh sidaa kuuma leeyahay ma tihid iyo hadalo kale oo qofka maskaxdiisa dhaawaceyso calaamadaha kale aad ku fahmi karta waxaa kamid ah xiriirka xun ee lamaanayaasha in lamaanahaada qalad uu kaa galo isla markaan qaladkaas uu kaa galo uu kaa dhaadhiciyo ama isku dayo inuu kaa dhaadhiciyo in isaguusan qaldayn laakiin wax qaldan ama qof qaldan u yahay adiga tusaale ahaan oo kale nin ayaa wuxuu u gacan qaaday xaaskiisa oo dharbaaxay dharbaaxadii ayaa wuxuu isku dayaa markaasi waxawaaye waa fashil dhankiis ka yimid ama mas-uuliyadii la rabay inuu isaga qaato qaladkiisa ee ahaa inuu gacan kuu qaaday ayuu wuxuu kaaga dhigayaa inuu gacan kuu qaado sabab adiga u hayd macnaha wuxuu kuleeyahy aniga ma rabin inaan ku gacan qaado inaan ku dhibaateyo ma rabin inaan ku dilo ma rabin laakiin adiga ayaa sabab ah hadda ogo marka gacan qaadka iyo falka qofka sameeyey adiga maahan waa isaga laakiin wuxuu kugu sameynaya wax la yihahda gaslighting asna waa baran doonaa oo narcissistic dhexdiisa ugu tagi doonaa iyo meelaha kale oo ah in inasraca lagugu shido oo adigan saxda ahayd ama qaldaneed markaasi lagaaga dhigo inaad qaldan tahay xiriirka xun waxyaabaha kale aad ku fahmi karta waxaa kamid ah walbahaar ama stress joogto ah walaahow ama waxaan leeyahay depressionka oo isna stresska sii fog in markasta qofkaasi maskaxdaada uu haysto oo adiga markasta aad noqoto qof dhiban waa qofkaasi waxyaabaha kale aad ku fahmi karta xiriirka xun waxaa kamid noqonaya in adiga dabeecadaada isku dayo inaad bedesho haddaba ogow adiga oo saxan ayaa waxaa isku dayaysaa ama shaki kaa galaya in dabeecadaaday ama adiga wax si un kaaga qaldan yihiin markaasaa waxaa dhici kartaa inaad isku daydo inaad yeelato qofkaasi lamaanahaada aha ee markaasi toxicka ama aadka u xun mid lamidkiisa mana samaysan kartid oo shaksiyadada ayaa kugu diideyso macnaha waxaa is leedahay dhaqanka aad sameynayso adoo saxan oo wanaagsan ayaa shaki ka galaya oo is leedahay qofkaan ama kaa saxan yahay ama sida uu rabo ama noqdaa marka waxaa isku dayaysaa marka inaad adiga isbedesho oo qofkaas sida uu yahay noqoto haddaba ogow adigaan daawanaya qodobadaasi waxay kamid yihiin xiriirka xun haddii hadda ay ku haysto iyo haddii kaleba oo qof saaxiibkaa haysto waa inuu tago xarun caafimaad gaar ahaan dadka galbeedka kusugan fursado badan ayay haystaan oo ay dhakhaatiirta ku tagi karaan soomaalida inkastoo aada ugu dhaban yihiin inay dhakhaatiir psychologiga ay raadsadaan iyagoo isku maleeya in la ceebeynayo ama la dhahaya qofka ma waasho kale psychologiga qofka waasho kale ma tago ama psychiatricas qof kasta oo markaasi cilado maskaxeyn soo wajahda ama xiriirkiisa xumaado ayaa tagi karaa halkaasi haddaba halkaasi haddii aada joogto dalka galbeedka oo fursad fiican ayaa haystaa dhakhtarkaada waa la hadli kartaa maxaa yeele dhakhtarka sirtaada ma gudbina qof kale uma sheegayo sida soomaali ama qof kale soomaali ku ogaama ma jirto isagaa la tagaysaa isagaa kala hadlaysaa
waa dhici kartaa ama waba jirtaabo in lamaanayaal fara badan ay dhibaato dhanka arrintaas ay ku jirto. waxyaabaha kale aad ku fahmi karto waxaa kamid ah maseer aan macno lahayn oo ujeedo gaar aan lahayn. haddaba qodobkaas markaa taagana waxaa la lahaa xiriirka quruxda badan ama xiriirka wanaagsan iyo xiriirka xun waxyaaba lagu kala fahmo waxaa kamid ah kan xun maseer zaa'id ayaa ku jira oo markasta oo qofka lamaanaha uu kaa shakinayo, halka xiriirka wanaagsanna bilcagsi uu ku yahay oo qofkaasi jaceylka uu qaadayo ama uu ku jeclaanayo oo markaasi wax cilad ah uusan ku qaadin. laakiin maseerka waa qayb kamid ah ciladaha xiriirka xun, in gabadha ay kaa shakiso inaa naaga kale la sotomato, in ninka uu kaa shakiyo in markaasi goollaaf aa sameyso, inta way dhacdaa. haddaba ogow arrimahaasi waxay markaasi yihiin calaamadaha lagu fahmo xiriirka xun ee dhex maro gabadhii wiilka isqaba ama ninkii naagta wada hoyda. xiriirka xun ee lamaanayaasha dhex maro waxaa kaloo lagu fahmaa waxay tahay xakameyn joogto ah. qodobka markaas soomaalida aa fiirno aad waxaa ugu badan dhanka ragga oo isku daya inay xakameeyaan gabadha oo ay isku dayaan markaasi in ay ka godoomiyaan saaxiibadeeda iyo asxaabta kale. waxaan lagu sheegaa in qofka markuu yahay insecure wax loo yaqaano ama qofka daciifka ah inta badan isku dayo in gabadhaasi uu ku godoomiyo asxaabteeda isagoo ka cabsi qaba in isagoo meelaha wax ku sameynaya loo soo sheego gabadhaasi, halkaasna uu bam kula qarxo oo arrintiisa banaanka soo noqoto. sidoo kale gabdhahana way sameeyaan qodobkan oo wiilasha ku sameeyaan, oo waxaa arkaysaa gabdhaha qaar aad marka u xakameeya ninkooda oo waqtiyada saaxiibadiisa loo qaadi lahay ku sheega ama u sheega in guriga uu yimaado. wayna inta badanna waxaa lagu dhaliilaa nimanka Soomaalida arrintaas oo kale xoogaa marka u fiiriso si ninka Soomaaliga waxa laga yaabaa inuu ku baraarugo qodobkaasi oo ah xakameynta ee lagu hayo ama xaaskiisa ku hayso. maxay asxaabta ayaa u sheegay ninka naagta ka adag wax noocaas kale waxaan taasina sabab waa dhaqanka Soomaalida oo iftiiminaya taas. dhaqanka Soomaalida wuxuu awood yarsiiyaa ama uu sareeyaa ninka oo xurnimo ka baaxad weyn mid gabadha uu siiyo. waxaa kaloo qodobada kamid ah lagu fahmi karo xiriirka xumaaday daacadnimada oo meesha ka baxdo. qofkan shalay daacad isku yeedeen wax kasta wadaagayseen hadda meesha waa ka baxday. waxaa laga yaabaa arrimo masiiri ah oo gabadha qaadanaysa ama wiilku uu qaadanayo in midba mid kale uusan ka talagelin ama uu sheegin. laakiin markii hore waxay ahayd dad wax isku sheego asxaab ah oo isjecel iswada joogo oo daacad isku ah. marka daacadnimada meesha ka baxaysaa, qof kasta go'aankiisa uu gaar u qaadanaa, markaasa qof kasta wuxuu ku baraarugaya qofka kale oo go'aanka qaatay. halkaasna waxay qayb ka tahay dhibaatooyinka ama calaamadaha xiriirka xumaaday. waxyaabaha kale xiriirka xumaaday ee lamaanayaasha ama ninka naagta isqaba dhex mara waxaa kamid ah xanaaq joogto ah oo aan markaasi lahayn meel markaasi loo saariyo ama sabab. xanaaqan joogtada hadal yara dheesa waa lagu bedelaa, qaabka lagu hadlaa waxuna si weydiinaysaa qaabka positive-ka negative-ka laga dhigaa. Soomaalina way dhahaan inta badan in warka maxay ugu xumaanaysaa isdhaan lamaanayaasha. marka meesha hada aragto mina warka isku xumaanayo oo warka aduguna ka wado kala hadii xumaan lagaga bedelo oo xanaaq jini ah min isku rido isku waalo. inta badan nimanku waxay sameeyaan derbi gacanta ku raftaan iyagoo markaasi xanaaqooda handadaad gacan qaad amal waxa uu keesinaya kadibna gabadhii oo dhibanaheedna qalqal gasho iska aamusto. sidoo kale wiilasha marka la isku xanaajiyo dabcan qofka lamaanayaasha waa dad jecel waxa laga yaabaa wiilku ka dacsan gabadha oo jecel yahay marka la isku xanaajiyo oo furka la turto oo isdajina isagoo laga gardaran yahay og yahay salaanka waxba qaldamay ee qaladay gabadha oo la hadlay furka marka tuurnaysa. marka wuxuu leeyahay warka hada si wada wax ka xumaada marka isagii oo saxsanay ayaa markaas wuxuu u tanaazulaa qofkii qaldanaa isagoo aaminaya qaladka gabadhaasi inuu yahay masaxa isna u qaldan yahay. haddaba ogow waxaa ku jirta xiriirka qaldan ama xiriirka xun ayaa ku jirta taas in aad ka warqabtaa waa calaamadihiisa uu ka mid yahay waa inaad ku baraarugtaan. waxyaabaha kale ee xiriirka xumaada lagu fahmi karo waxaa kamid ah ixtiraam la'aanta, in qof kale ixtiraamna. waxyaabaha kale lagu fahmo xiriirka xumaaday ee lamaanayaasha ama ninkii naagta isqaba ama qoyska dhex mara wax kamid noqonaya ixtiraam la'aan ama xushmad la'aan. saa u fahmayso gabadhiina wiilka ma ixtiraamayso, wiilkana gabadha ma ixtiraamayo, jaanta ragow waay. inta badan ixtiraam darradaasi ama arrinta markaasi xushmad darrada waxaa bilaabo qofka markaas qaldan ama wiilka ha aado ama ninka ha aado ama naagta ha ahaato cidda doonta ha ahaato. waxaa xushmad darradaas bilaabo qofka foodo wado ama falaagada ah ama cilada haysto ee raba in
wax uun ay sii qasbaan laakiin aan ogeyn wax wanaagsanadaan waxaan waxa loo yaqaano afka qalaad ee psychology aan joogno stone willing xawaay waa lagu aamusaa su'aal ay weydiinaysaa dhigaha laga jafriska oo ku ag fadhiya qofku ag fadhiyo oo alla hadlayso ka jawaabaynin marka dambe anigu waa mashquulsanahay waxaa kaloo kamid ah eragaas hadda ay sheegayeen stone willing in qofkii oo arrin muhiim ah kala hadlayso telephone oo iska qaadana waxa dhaqaaqa soo ku dhihin kaadi wax iska dhaqaaqa marka waxyaabahaasi waxay kamid yihiin xiriirka xumaaday ee dhaxmar lamaanayaasha isqabiilka gabadha haddaba Soomaalida aad ayuu barnaamij ugu badan yahay waxyaabaha kale ee lagu fahmo xiriirka xumaaday ee Soomaalida waxaa kamid ah arrimaha la xiriira baahiyaha maxaa kamid ah haddaba dhageysto abdaawade haddii carruur ku joogaan haddaba ha u ogolaan mobilkaada inay kula fiirsadaan baahiyahan hadda aan ka hadlayno waa qodob ka da'weyn da'da carruurta baahiyaha gaarka tusaale ahaan waxaa usoo qaadan karnaa goosha ama galmada waxa loo yaqaano oo gabadha ee ku adkayso wiilkan uu ku adkayso gabadha hadba qofka markaas qaladkooda wiilka waxaa laga yaabaa in gabadhan uu ku dhibo goosha iyadoo ninkeeda u baahan ayuu isna durkiis galaa waxyaabis kala door sameysana haddii la xataa ma soo sameyn laakiin wuxuu ogaanaa gabadhan inay baahi arrinta u qabto markaas wuxuu sameeyaa inuu ku silciyo ku dhibaateeyo gabadhi uu meeriyo inta badan dhaqanka Soomaaliga ka fiirso gabadha aad ay u adag tahay in wiilka warsto marka hadee warstana wuxuu leeyahay waa jirinahay waxyaabo been ah ayuu sheegayaa sidoo kale gabadha iyadana way sameeysaa sidaas oo wiilkii isagoo gabadh u baahan ayaa lagu adkeeyaa goosha waana qodobada ugu waaweyn 9 qodob ayaa lagu sheegaa ee xiriirka xumaad lamaanayaasha lagu fahmo inuu kamid yahay qodobkaasi oo baahiyaha la isku diido baahiyaha qarsoon ama goosha waxa aragtay hello waa isku tiirsamaan haddaba xiriirkan ma la badbaadin karaa waa la badbaadin karaa nala soco barnaamijyada soo socda mahadsanidin hadaa warkeena ka hesheen kanaalkan subscribe saar mahadsanidin